intan dooda ku jirana waan qorxin doonaa doodayda waa saddexdaydii mustaqbalkina way daawan doontaa gabadh reer ku soo tabcay oo iskuulkeedii iyo dhalaanimadeedii iyo korinteediiba lagu soo tabcay oo waqtiga inta lag maxaad u leedahay wax kuma ayada cidiba gabadh kale wax ku fashanayad adigu daba tacabka aabaha waxa kaga darado guriga iska balmo ku fadhiyo guriga waan joogayaa dhageyso gabadhu inay rubuc nin ay hesho ayaa uga khayr badan inay la guriga fadhido gurigeyga waan joogayaa gurigeyga waan ku soo noolaa rubuc ku siinayo rubuc waana ku qanacsan tahay gurigeyga waan joogay 9 boqol lagu soo meheriyay maaha in ka badan baa la soo koriyay waxbarashada laga bixiyay boqolna waan ku dhalayaa markaas dabada aniga 9 boqol uu ku tiraado hooyo gurmad gursanaysa guriga culeys baad ku haysaa naba way aan ku jawaabo walaalo aynu kala mikrofoonkaay aan ku jawaabo markan aad leedahay adigay dan kuugu jirtaa inaan ahaana inuu ninku ku guursado hadahay dan kuugu jirtaa dhageyso iguma jirto hooyada iyo aabahay maanta waxay dhageysaa ku jawaabo dhageyso waxay qanciyaan hablow hay qasbin fikirkayga kugu jawaabaya hooyada iyo aabahay maanta waxay iigu soo tabcinsaan iyaga ku nasin lahaa noloshay maanta aade يعني waxay rabaan hooyaday noloshay ku soo nooleedo kale inaan ku noolaado nolol qurux badan oo fiican sidee markaa inaan maxay dhaqaaqo nin aniga aan ii fiicnayn ima guursanay fiicnaasho ma maxay maxaa adigu waxa ku leeyahay an maanta nin baa jira ninka ku baahida uu qabo adna wad u qabtaa bal adaaba uga baahi badan ba uguma baahi bani wax dhashaad baahan tahay caruur baad rabtaa haduu ilaahay siiyo waa dhalaya guriga hooyada ma fadhii kartaa way nin laan ku fadhiisa 20 jir iyo 30 jir ku fadhii sabab seenan soo niga fadhiya in kaban laan soo niga fadhiya horta gabadhu kaligeed ma baahna labada qof way isku baahan yihiin saadaha 9 waa naagu nin baa baahan ba ka sheegsan ay waqsi labada qof way isku baahan yihiin waa sax adiga ay baahana ku baahan labada qofna gabadhani guriga hooyad kaligeed ka weeysan guriga hooyad ka weeysan iyadoo ka weeysan waa isku soo guurka lagu sheegay waa la isku soo guuray waa sax way faantay ay lacagta lagu sheegayaana ma hal wax weyn ma ha wax la xiisaynayo laakiin waxa ka khayr badan labada qof oo si dhaba isku aamina qurba joogtu waaqicay taqaana ma jirto qurba joogtu halkaas ka xasan weelka kaga xalanaysaa halkan waxa lagu diyaarinayaa khamiiskaagii dharkaagii xageed ka helaysaa marka saaq caalamka uga degto weel xal baa lagu horanaya cabdo cuntadaadi baa diyaarsanaysaa waqtiga dhafaad bay toobaad u qaybinaysaa qaybtaada waa inaad noloshii guriga qabataa halkan xaajiba lagu leeyahay habeenkii duugis baa lagu daraya xageed ka helaysaa qurba joog baad ka helaysaa hablihii baataajada la baray dhibaateen uu keenay waa la soo koriyo jaamacadaha laga soo bixiyo waa intaas oo lacaga hooyooyinku waa intay mikrofon qaataan waa inay gawaadhi madaxa go'aan qaataan waa inay idhaan in hablaha yaga jaamacadan ka soo bixinaye ragga inamada wadanka joogow hablaha yaga aguursanina ilaa jaamacadii iyo lacagtii oo dhan xisaabteedu intaasay tay soo bixiya marka waxaan aaminsanahay haddii ay habluhu dareemeen nin kasta oo wanaagsan gabadh baa haysata oo noloshiibuu tajribeeyey noloshiibuu ku guulaystay wuxuu arkay waxay aragtay ninkan nin la aamini karin inuu yahay hablaha aaminsan ninkii wanaagsanaa naag baa haysa waaruma hayno waanu hagaajino waanu toosino waanu fiicnaysino gogol qurxoon iyo sharaf iyo karaamo iyo hadal wanaagsan buu naga helay idinkuna waad samaysan kartaan inaad soo kaxaystaan baad disi kartaan ood qurxin kartaan markaa gabadh soo jafjafatay oo kusoo daashay maxaad keedi uga dibataysaa xanuunkaa diidan tahay adu maxaad gabadh kale ugu ogolaanaysaa ninkan waqti baan soo geliyey intii ay aniga iga kaxaysan lahayd gabadh aniga yacni anugu ku soo daalay waxaan ka doorbiday inaan anugu ka soo kaxaystaneed inaad waasha traamo kurido traamo kurido ma waxweyn maaha waa la kala qaadaa caruurtii ay hadhow toona caruurtii baa dhibtan qaadays dawguma horeeyaan nin naag soo qaaday marka iyada waxaan weydiinayaa mutaas ka waran hadii la gudul qabsado saan yacni ugu dhaqaaqay inaan ninkaas soo la soo wareegay daanu ayaan ugu ogolaya inay iga wareegto haddii aad leedihiin nin la'aan baa jirta la garay ood nagu qabsanaysaan ood leedihiin xabadan aan idinku imanaynaa laakiin wax wanaagsan ma jiro gabadh baa wax hagaajisa gabadh baana wax qurxisa reerkooda iyagu iska wanaagsan oo iska degan isugu badhacsantu iska hagaagsan yahay wariga dalaqaydi waxa ka imanaysa halka horta laba masalo waxa laga yaabaa inaan ka jiiro cadaaladii iyada ku qancin karin inaanad lacagta badan awoodin sababaan ugu qancin karin sababtoo magaalada rag baa kula jooga kaliya ma noolide anigu inaan ka singalka ee waxba haysan ayaan qaadanaya kaasan nin ka dhigaya ninkaasan soo saaraya marnaba dooran maayo nin waxa la dhahdaa gabadh qaba nin jafjafayo oo
kala kacsan horta ma jiro nin dhalinyaro oo dhiibsan bay helayaan hablahan haddii kalsoonidooda fulaan hal abwaan baan intaan suugaan ku dhex jiray muddo dheer baan ku dhex jiro hal abwaan baan arkay waxa inaan run sheegay wuxuu ahaa in qolombina loola jiray shilin muu haynina askari la soo riyay baa reer yarna uu ka dhashay markaasuu inan uu iyo maseestire waa ka xamarkii malaa waxba yaraa iska soo wada bax markaasuu fahmay inay lacag weydiinayso markaasuu yiri iglan lacagta kama keenayo aradka baarleene ayaantii aan dhashay ilaa maanta way orade arrin shaqo askari baan hor laga soo oriyay usha lacag iyo alaabtana ugu ilaaqaysan ammaan ku soo qaatay waan ijaarsaday waxa duuna labada goob ay alaaba inaad hadhow yaadii oo dhan ay way hodeeyay sida ma igu aamini haddaad uurfayowdahay mise wiil khiyaaraad ka dayan oo miyu badan horta dhalinyaro fara badan baa jirto reera yeelanin kuwaas inay wanaagsan yihiin iyo inaan wanaagsanayn horta yaa tastigareeyay marka koobaad yaa ogaaday oo la ma wanaagsana gabadh ninkan wanaagsan ee la sheegayna ee gabadhan ayuunbaa gurigu wuxuu ka dhisma haweenku ka dhisma guriga haween baa leeyahay marka gabadhu marka de ninkii ay wanaajiso ay fiicnaysiisato ay nin ka dhigto in la yiraahdo ninkii wanaagsanaa gabadh baa haysa maaha anuu maanta soo dhalinyaraan hay guur ma lihi waxbaan bartaa waan shaqeeyaa laakiin maalintan guursado waxaan ku biirayaa raggaa ninka dumarka waxaan haystaa laakiin maanta waxa weeyaan waxaan ahay dee ninkaa cidlo taagan waniyo waa xaggee waan ku sheegay dee kaashlaan baa naga hayseen nagu qaatay intaasoo dee intaana lagu samro waxa weeyaan oo wiil yar oo maanta helaya wiil walaalkaya oo ina yara oo dhalinyaro oo amba iska jajafan karo reere bila aadan oo inaan intay wiil hagaajisatay uu dul dhaco iska qabso uu qarbacuun ma noqonayso waxa xaqiiqo cadaana intii cilaajin aragnimo rag uma ku xiran asbaaba haday weydiisaan waxa lagu leeyahay baa ayaa kaga baxday abayna baa waashay marka ma jira cilaaj gooriyo dumarka wuxuuna loo leeyahay gabadha nin baa waale inamada imka samankan jooga waa inama jecel inay habeenkii baashaalada sida iyagu iraahdaan weeyaan marka waxa la aamusanahay oo raadinayna oo guurkii u raajinay inaanu helno nin wanaagsan horta adduunka qof xun ma jiro qof waliba hadduu mas'uuliyadiisa ka soo baxo gabadhuna mas'uuliyadeeda ka soo baxdo ninkuna mas'uuliyadiisa ka soo baxo waa la wada hagaagaya saasaanay qoys wanaagsan iyo bulsho wanaagsanba ku dhismaysaa muxuu laakiin taasi ay kaaga carasay ninka xaaska ay doonayso bisoo baa jirta bisoo lacagti waya lacagteed ku daasheen lacagta man gurigiina lagu hagaajinayn ubadkiina man qeyrkood laga saraysiinayn xagad uga dhigteen lacagtii inay inantii qaadanayso qaasa